kana xubinteena badqabka caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa maadaama xilli roobaad uu bilaabanayo xanuunada ka dilaaca roobabka sida ugu haboon aad uga hortagi karta xanuunadaasi iyo hadii ay ku haleelaan sida isaga daaweyn karta xanuunadaasi hadaba aanu ka bogan waxa lagu jira xilliyada roobaadka bilaabanayeen mustalaad waxa marayna inay bilaawdeen ay socdaan waxa jira cudurro badan oo sababa markuu roobka yimaado waxa kamid ah dodge fever cudur dhaayo waxa kamid ah cholera kamid ah waxa kamid ah influenza kamid ah waxa kamid ah leptospirosis kamid ah hadii aan Soomaali bedelo waxa waaye dadka maadaama aysan wada garan karin hal yiraahdo duumada Soomaalida u yaqaaniin kaneecada iyo daacun calooleedka iyo hergebka iyo cudur la yiraahdo leptospirosis oo sabab inta badan animalska ay sababaan sida eyga camal oo sababo ayaa kamid ah taas waxa kaloo kamid ah cudurrada la yiraahdo infection disease ka lagu kala qaado viral infection ka bacterial infection cudurro ay sababaan kamid yihiin misla badiyeen waxa sababa mustali biyaha roobka markuu roobka yimaado mustalaan waxa jira meel biyo fadhiisigaasi ayaa waxa sababi karta inay ka dhalato bacterial infection ama viral infection Soomaaliya mustali marka inta badan waxa u badan meelaha ay ku badan yihiin abaaraha ama biyaha waxmaatan heede ka dhacaan abaaraha imaadaan inta badan marka roobku yimaado cudurrada inta badan saameynta ay ku leeyihiin meeshaas xilliyada abaaraha ee IBDS-yada iyo kaamamka ay u badan yihiin kortag ay leeyihiin waxa lagu hortagi karaa for example roobku markuu yimaado biyaha godka markay fadhiistaan in godka laga baxsho haddii aan laga bixinin meeshii waa wasaq baa fadhiisanayso taqsigii iyo cayayaankii wixii baa soo qaadayo cuntadii iyo raashinka biyihii wixii ay soo dhaxgalayaan markuu soo kaxo meeshaas infection laga qabo marka in meesha laga biyihii meesha fadhiistaan in laga qaado ama biyihii la isticmaalayo sida warto kale to biyaha marka ku aruraan kale biyaha markii laga isticmaalayo kale to biyaha la karkariyo oo la nadiifiyo cuntadana la karkariyo iyo in marka waxay ahayd xaafadda deegaanka nadiif laga dhigo oo la nadiifiyo biyahana loo isticmaalo wax la yiraahdo chlorine lagu nadiifiyo si markaasi jeermiska iyo cudurrada looga hortago bulshada waxaan ugu baaqi lahay hatta cudurrada ay fara badan yihiin markii la yiraahdo cholera hatta waxa ugu daran daacunka ugu daran inay ka feejignaadaan meelaha wasaqda ka baxshaan ay meesha nadiifiyaan biyahana iska dhaqaajiyaan hadii si kale loo fiirsho markii la yiraahdo cudurka duumada ama kaneecada ahna in ay ka feejignaadaan ayagana oo la yiraahdo ay suubiyaan biyaha meesha fadhiisanayo kaneecada ka dhalanaysa laga dhaqaajiyo biyaha meesha laga nadiifiyo hadii maarkan waxay ahayd xilliyada qabowga waxa jiro wax la yiraahdo cudurro in imaadaan influenza hergebka kale to waxa dhibaato badan u leeyahay inuu maarkan waxa dhibaato badan u gaarsiiyo respiratory disease ama respiratory system neefreenka wuxuu keenaa qunfac badan oo keenaya marka qofka si uu gaashaanto waxa loo baahan inuu suubiyo ka hortag suubiyo ama jaakad oo kale xirto oo sida qawgaas uga hortago kale to markaas ka dibna marka bulshada guud ahaan waxaan ka dhiirigelinayaa kulay hadii markuu roobdo cudur waa dhalanaya cudurka markuu dhasho in feejignaan la galo markii feejignaantaas la galana hadba goobta caafimaad ee kugu dhow inaad tagtid oo la tacaashid cudurkaas siduu yahay qaabku yahay iyo sida looga hortagi karo inaad la talin sabisid oo marka dhakhtar la xiriirtid ama goob caafimaad kugu dhow tagtid meeshaas ka jaanqaatid loo baahan yahay waxaan filayaa in warbixin faahfaahsan oo ku saabsan cudurrada dilaaca xilli roobaadka aad ka heshan xubinteennan badqabka ee caawa oo kale aad ku daawataan barnaamijka dheelitirka